Saddexda ugu muhiimsan nolosha ee ay kasii farcami karaan boqolaal sababood oo aad ku noolaan karto ama aad ku noolaato. Xaqiiqatan dunidan aan ku noolnahay qofba sibuu u nool yahay. Qofba meel ayuu ku nool yahay. Qofba wax buu ku nool yahay. Yacni qof walba nolosha heer buu ka taagan yahay. Waxaa jira sidoo kale waxyaabo la xaqiijiyo, guulo la gaadho, guul darrooyin lala kulmo, dhaawacyo, dareeno xanuun kulul, cidlooyin, duruufo, marxalado kala duwan oo noloshu saldhig u tahay. Haddaba waxaan eegi doonaa saddex saddex markaasi waxyaabahaas ka mid ah oo waxaan eegi doonaa waxyaabahaas aan soo sheegnay saddex markaasi ka mid ah oo awood badan. Qof walba sida uu noloshiisa ugu maareeyo ama markaa uguna nool yahay ayaan markaasi la wadaagi doonaa oon halkan ku sheegi doonaa. Saddexdan aan kula wadaagayaa waa saddex aad noloshaada ku maareyn karto haddii aad adeegsatana aad macallin isku noqonayso. Qof waliba waxa uu rajaynayaa ama qof waliba markaa waxa uu doonayaa in riyooyin iyo hiigsi iyo yool uu leeyahay inuu ka midho dhaliyo oo uu markaasi rabitaankiisa heer ka gaadho noloshan. Inta aad safarka nololeed ku guda jirto waxaa kaa hor imanaya caqabado kala duwan, marxalado kala duwan, markaa waxyaabo aad u tiro badan oo lama filaan kugu noqonaya ama markaasi aan ku cajabin. Haddaba waxyaabahaas sida aad uga gudbi karto markaa yoolkaagana aad u gaari karto ayaan isla eegaynaa. Qodobka ugu horreeya ama lambar kow waxa weeyaan samirka. Samirka qof waliba markaa waa uu garanaya. Samirku waa waxyaabaha ugu awooda badan ee lagula dagaalamo caqabadaha nolosha sida markaasi inaad quusato, in nolosha kugu adkaato, yacni inaad samirto waxaad ku helaysaa xamil iyo adkaysi. Inaad xamisho waqtiyada ugu adag noloshaada, duruuf kasta iyo marxalad kasta oo ku haysta markaasi haddii aad samarto ama haddii aad samir markaasi la kaashato ama samir samayso waxaan hubaa inaad ka gudbayso. Samirku wuxuu sidoo kale ka mid yahay diinta, kitaabka quraanka waa lagaga warramay. Sidoo kale axaadiista rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa lagaga warramay. Tan waxaad ku ogaan kartaa inaad baadho oo markaasi aad ogaato dariiqooyinka ugu fudud ee Ilaahay noo sheegay inaynu si warwar la'aan ugu noolaan karno. Dadyowga ugu adkaysiga badan waa kuwa ugu samirka badan markaa bulshada ama dunidan aan ku noolnay. Samirka markaasi waxa aad markaa ku gaari kartaa ama aad ku heli kartaa rabitaankaaga iyo yoolka aad leedahay. Noloshu waa halgan waxaanad ku jirtaa dagaal. Waxaa ku soo gaaraya intaad halgankaa ku jirto guul darrooyin iyo jab, murugooyin iyo qaar kaloo badan. Waxaanad kaga gudbi kartaa ama aad ku dhaafi kartaa waa samir iyo adkaysi inaad dul qaadato. Samirka kaasho si aad caqabad walba uga gudubto una gaadho yoolka iyo hiigsiga markaa aad leedahay. Yoolka iyo hiigsiga markaa aad noloshan ka leedahay si aad u gaadho waa inaad samirto. Shaqooyinka iyo ganacsiga, waxbarashada, saaxiibtinimada iyo jacaylka dhammaan wadiiqooyinka kala duwan ee noloshu waxay u baahan yihiin samir. Si walba oo noloshu kugu adkaato waa inaad samirtaa, waa inaad u samirto ka dhabaynta hadafyada aad nolosha ka leedahay. Si aad markaa uga dhabayso rabitaankaaga, si riyooyinka aad leedahay aad u gaadho, si rajooyinkaagu ay kugu rumoobaan. Samirku waa waxa laf dhabarta u ah gaadhista guusha ama markaasi inaad wax ku guulaysato ama hadafkaaga aad gaadho. Qodobka labaad waxa weeyaan adkaysiga ama dhabar adayga. Haddiiba aad rabto hiigsiga iyo yoolka aad nolosha ka leedahay inaad ka midho dhaliso waa inaad la timaad adkaysi. Inta aad safarka noloshaada ama safarka guushaada ku guda jirto waxaa kaa hor imanaya marxalado qadhaadh iyo waqtiyo kuu sababi doona murugo iyo qalbi jab. Kuwaas oo aad kaga gudbi karto ama aad ku dhaafi karto adkaysi, yacni inaad xamisho culayska kusoo wajahaya, inaad dhabarkaaga u ridato, inaad dhabar adag la timaado, in aadan jilcin, inaanad noqon qof markaa jilicsan oo caqabadaha ama duruufaha kala duwan ee nolosha ay ka adkaadaan. Adkaysigu waa waxyaabaha lagu gaadho guusha. Adkaysigu sidoo kale waa waxyaabaha laga dhaxlo geesinimada. Adkaysigu waxa uu kaa dhigayaa qof adag oo aanay liicin duruufuhu, qof adag oo aan rajo beelin hadafkiisana markaasi aan ka quusanin oo hadafkiisa markaa uu ku guuldareysto aan markaasi rajo beelin oo aan quusanin ayuu markaasi kaa dhigaya adkaysigu. Noloshu waxay leedahay waqtiyo xanuun badan
laga yaabaa inaad jacaylka iyo waayihiisa la nooshahay, laga yaabaa inaad duruufo dhaqaale la'aaneed la nooshahay, laga yaabaa in aad ku guuldareysatay ganacsi, laga yaabaa inaad qalbi jab weyn kala kulantay, shaqo la'aan kusoo wajahday. Waxaas iyo kuwa kasii badanba waxa aad kaga gudbi kartaa waa adkaysi iyo inaad naftaada ku kalsoonaato. Haddii aad ku hawlan tahay horumarinta noloshaada, waxaa qasab ah mar walba inaad caqabado kala duwan la kulanto iyo marxalado aad u adag oo aad markaasi ku dhawaato quus. Balse waxa aad kaga bixi kartaa ama aad kaga gudbi kartaa ama aad ku dhaafi kartaa waa adkaysi. Noqo qof adag oo wajihi kara marxaladaha kala duwan ee nolosha kuwooda ugu adag. Adkaysiga, dhabar adayga iyo markaa in aad u dulqaadato wax kasta oo aad markaasi adag, in aad markaasi xamisho waqtiyada adag ee noloshaada, waxa aad markaasi ku gaari kartaa guushaada ama hadafka aad nolosha ka leedahay. Mar walba oo aad adkaysato, mar walba oo aad dulqaadato, mar walba oo dhabar adag la timaado, waxaa soo dhawaanaya rumowga ama rumaynta rajada aad noloshan ka leedahay, gaaritaanka yoolkaaga, rabitaankaaga ka dhaweyntiisa. Waxaasoo dhan ayaa markaasi kusoo dhawaanaya intaad adkaysanayso ee dhabar adag ka samaynayso. Qodobka saddexaad aan soo gudubno waxa weeyaan dad la dhaqanka ama la jaanqaadka. Marba haddii aad ugu talagashay inaad ku noolaato meel walba oo horumarka noloshaada ku jiro, waxaa qasab ah in aad bulsho iyo dad kala duwan la noolaato. Isla waqtigaas waxaa lagaaga baahan yahay in aad la dhaqanto bulshada, inaad fahmi karto hab nololeedka aad kula jaanqaadi karto bulshada aad la nooshahay. Haddii ay noqoto shaqo iyo haddii ay noqoto waxbarasho, waxaa la jaanqaad wanaagsan kuu samayn karaa waa la dhaqanka wanaagsan. Inaad dadka isfahmi kartaan, inaad noqoto qof furfuran, in markaasi qof la fahmi kara aad tahay, qof cid walba la noolaan kara markaasi aad tahay. Dad la dhaqanku waa in aad cid walba oo wax idin dhex maraan isfahmi kartaan. Waa inaad la jaanqaadi karto oo aad la noolaan karto cid walba oo dana nololeed isku keen xidhaan. Shaqada, waxbarashada, ganacsiga, safarka, xiriirada nolosha ee kala duwan, jacaylka iyo saaxiibtinimada. Waxaas oo dhan waxay kaaga baahan yihiin dad la dhaqan wanaagsan iyo la jaanqaad qurux badan. Taasi waxa ay kugu kaalmaynaysaa markaasi inaad gaadho yoolkaaga iyo horumarkii aad nolosha la rabtay ama horumarkii aad rabtay inaad nolosha ka gaadho. Dunida meel walba oo aad tagto waxa aad la kulmaysaa dad iyagu kala duwan iyo dhaqamo kala duwan. Si markaa aad danahaaga u fushatana waa inaad la timaad dad la dhaqan iyo la jaanqaad wanaagsan. Waa in aad noqoto qof furfuran oo ay fahmi karaan bulshada. Waa in lagula shaqayn karo, lagula baran karo, lagula ganacsan karo, lagula saaxiibi karo, xiriir lagula samayn karo. Waxaas oo dhan ugama socdo inaad noqoto qof dhulyaal ah oo lagu dul socon karo. Balse waa inaad noqoto qof adag oo isku kalsoon, bulshadana la dhaqmi kara. Dad la dhaqan wanaagsan yeelo si aad bulsho walba u dhex noolaan karto oo markaa cid walba aad markaa isfahmi kartaan. Inta aad furfuran tahay, inta tahay qof dabacsan oo daacada oo bulshada hadalkooda qiimeyn kara, isfahmi kara, hadalladiisu ay yihiin markaasi qaar nadiifa, qof aan lahayn hadalla xanafa oo bulshadu kaga cararaan. Inta aad markaasi intaas oo dhan samaynayso, waxaa kuu fududaanaysaa dad la dhaqankaaga inaad dadku jeclaadaan oo bulshada ku dhex noolaato yoolkaad rabto inaad ka gaadho. Mar walba oo aad kalsooni samaysato, mar walba oo la jaanqaad qurux badan aad samaysato, mar walba oo aad dad la dhaqan wanaagsan la timaado, waxaa fududaanaysa inaad riyooyinkaaga ka dhabeyn karto. Sababtoo ah qof waliba bulsho ayuu la nool yahay. Bulshadaas waxa uu ka dhex raadinaya oo markaasi uu kaga dhex markaasi muuqanaya waa rumaynta riyooyinkiisa ama rajooyinka nolosha leeyahay inuu gaadho. Shaqooyinka, ganacsiyada, waxbarashada, saaxiibtinimada, xiriirada kala duwan ee nolosha intaba waxay kaaga baahan yihiin dad la dhaqan wanaagsan. Inaad noqoto qof la fahmi karo, qof furfuran, qof bashaasha, qof farxad badan, cidna markaasi aanay isdiidi karin. Taasna ugama socdo inaad noqoto qof jilicsan oo markaasi wax kasta lagu dayi karo, balse laakiin waa in aad noqoto qof adag oo kalsooni leh, afkiisana wax ku goosta, markaa dadkuna ay fahmi karaan oo cidna markaasi aanay isdiidi karin inaad noqoto. Taas ayaa mar walba ku qurux badan oo aad yoolkaaga iyo riyooyinkaagana ku gaadhi karta markaasi. Saddexdani waxay kaa caawinayaan inaad riyooyinkaaga fushato, inaad markaasi rabitaankaaga aad ka dhabayso. Waa samirka, dad la dhaqanka, adkaysiga. Waa 3 qodob aad iyo aad u muhiima oo markaasi aad noloshaada ku horumarin karto.
ugu dambeyn halkaas ayaan kusoo afmeerayaa. Waxaanan kuusoo gudbiyey ama aan kaaga sheekeynayo maaha wax aan meel kasoo qoray ama cid kale kasoo xigtay, balse laakiin waa waxaan anigu tijaabiyey, waa waxa markaasi anigu aan la soo kulmay oo soo tijaabiyey. Resultigii natiijadii kasoo baxdayna ay noqotay wax midho dhal leh oon jeclaystay inaan adigana kuusoo gudbiyo ood ka faa'iidaysato. Haddii aysan kula qurux badnayn ama fikir kan ka duwan adigu aad haysato, maaha inaad aniga eedeyso ama wax kale aad markaasi meelo kale aad la aado, balse laakiin intii ku wanaagsan ee ku anfacda ka dhex qaado, intii kalena iskaga tag. Haddii aad haysto fikirkan ka duwan oo ka qurux badan, qaybta hoose faallada ama commentiga ku sheeg dhalinyarada kale ama asxaabta kale ama bulshada kale walaaliheen si ay uga faa'iidaystaan, aniguna sidoo kale aan uga faa'iidaysto. Ku mahadsanid dhageysigaaga. Wassalaamu calaykum.